maxkamadda rafcaanka ee magaalada Hargeysa ayaa saaka xorriyadoodii u soo celisay 20 dhalinyaro darbi jiif ah oo hore maxkamadda gobolka Hargeysa ay ugu riday xukun dhan 6 bilood oo ay ku sheegtay in lagu dhaqan celinayo. xisbiga wadani ayaa dhalinyaradan bishii hore u qaaday rafcaan waxaana saaka qareenadii u doodayay ay ku guuleysteen inay xorriyadooda u soo celiyaan 20 dhalinyarada ah ee hore wasaaradda shaqo galinta cabasho ay ula tageen kumutaystay xabsi dhan 6 bilood. gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ayaa ka hadlay qodobada ay u cuskadeen inay xorriyadooda u soo celiyaan carruurta darbi jiifta ah. maanta halkan maxkamadda rafcaanka waxay ku dhageysatay dacwad ay rafcaanlayaal ka yihiin 20 rafcaanle oo hore ay maxkamadda gobolka Maroodijeex u xukuntay rafcaanna ay ka soo qaateen 20ka xukun sane. maxkamadda rafcaanku markii ay dhageysatay xukunkii markay dhageystay rafcaankii rafcaanlayaasha ay maxkamaddu doodii labada dhinac ay dhageysatay iyagoo qareena lahaa rafcaanlayaashu u doodaya iyo xafiiska xeeraarinta oo isaguna maxaan ku dhahdaa rafcaan sana ah. markii ay maxkamaddu dhageysatay waxay ku dhawaaqday xukun siideyn ah xorriyadoodiina way u celisay maxkamadda rafcaanku 20ka rafcaanle iyadoo maxkamaddu u cuskatay xukunkeeda xeer lambar 36/2007 xeerka nidaamka garsoorka carruurta qodobadiisa 747 iyo qodobka 10aad iyo qodobka 740aad maxkamaddu waxay u celisay xorriyadooda. qodobada lagu eedeynayna waxay ahaayeen qodobada 276 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 3aad baragraafkiisa koobaad ee xeerka la dagaalanka muqaadaraadka oo marka horeba qodobka 276 ay maxkamadda gobolku kaga cadaan waayay. waxay kaloo maxkamaddu u tixgelisay xaaladaha gaarka ah iyo duruufaha ay ku sugan yihiin maadaama ay yihiin darbi jiif una baahan yihiin dhaqan celin laakiin aanu xadhigu xal ahayn u baahan yihiin in bulshada dib loogu soo celiyo in wax la baro in aqoontooda kor loo qaado u baahan yihiin duruufaha nololeed ee ku gadaaman iyadoo maxkamaddu taana u tixgelinaysa oo ay tahay xaakimku inuu eego duruufta qofkan hortaagan ama qofkan la eedeynayo duruufaha nololeed xaaladiisa dhaqaale xaaladii uu dambiga ku galay markan uu dambiga galay xaaladdu uu ku sugnaa waxaasoo dhan iyadoo maxkamaddu tixgelinayso maxkamadda rafcaanku xorriyadoodii bay u celisay maanta taariikhdu tahay 7 bishii 3aad 2019. waxaa su'aal ugu weydiinaysaa diyaar baan ahay xeeraalintiina xukunka wax rafcaana kama qaadan waayo haddii ay xeeraalintu rafcaan ka qaadatay kagamaan hadleen media waayo xukun rafcaan laga qaatay oo maxkamadiga sarreeyay u gudbi doona sharcigu ima ogola inaan ka sii sheekeeyo. dhinaca kale garyaqaan mubaarig oo kamid ah qareenadii u doodayay ayaa sheegay in dhammaan ooda laga qaaday isaakana xorriyadoodii loo soo celiyay dhammaan darbi jiifkii hore maxkamadda gobolku ay ugu xukuntay xukunka dhan 6 bilood. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xukunka maanta ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodijeex Dr. Cali Suudi Diiriye marka xukunkaas xorriyadoodii ugu celiyay carruurtii 20ka ahayd ee darbi jiifka ahayd ee ku dhacay xukunkii cadaalad darrada ahayd 6 bilood ahayd hore ugu xukuntay 2 bishii 2 ee sanadkan maxkamadda gobolka Maroodijeex. waxaad xusid mudan gudida xuquuqlisaanka dawladdu warbixin sanadeedkii ugu dambeeyay soo saartay sanadkii hore waxay ku sheegtay dhibaatooyinka iyo duruufaha ay la nool yihiin carruurta darbi jiifta marka tala soo jeedin bay ku samaysay oo dawladdu waxay u soo jeedinaysaa in carruurta la daryeelo oo la ilaaliyo. marka waxaan soo jeedin lahaa in la qaato talooyinka ay soo jeediyeen gudida xuquuqlisaanka qaranka warbixintoodii ugu dambeysay ku soo jeediyeen isla markaana carruurta sidii loo dhaqan celin lahaa ee loo ilaalin lahaa la sameeyo. sidoo kale waxay iyaguna maxkamadda rafcaanka u mahad celiyay qaabkay u sii daysay dhalinyaradii darbi jiifka ahayd mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu rafcaanka u qaaday dhalinyaradani iyadoo xisbi ahaan iyo garab dhalinyar ahaan aan u qabanay 2 qareen oo dacwadda maanta ku guuleystay in xorriyadooda ay helaan. wuxuu qaatay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanku door weyn carruurtaasina waxay heleen xorriyadoodii. tallaabada labaad ee uga gudbaynaana waxay tahay baaqaan u dirayno wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maadaama carruurtu ay heleen xorriyadoodii oo yihiin darbi jiif aan haysan damaanad nololeed oo aan haysan daryeel waalid oo aan haysan hoy iyo dugsi in wasaaraduna ay qaadato doorkeeda
oo 20 carruuraba la geeyo dugsiga iyo xarunta hooyiga u ah carruurta darbijiifta. waxaan aad noogu farxada in maanta dhallinyaradii aanu qareenka u qabannay maanta ay kiiskoodu jabo oo xorriyaddoodu dib u helaan. dhallinyaradoonu inta badan waxay ahayd murumaal way xoogsanayeen oo waxay ka shaqaysanayeen magaaladii ka shaqaysanayeen. waxaanu leenahay intaa xidhnaayeen xaqdarrada ku xidhnaayeen in magdhowgooda ay wasaaraddu ay siiso ay bixiso.